السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دوال عاوي أونلاين سكول iyo forest كوني خبر رايتيكا. ما أنتو هن لجنانا apology letter وورقة رالي جلين سيد الله قرر لها. while apologizing in a person مركز قف رالي جلين إيسو أنت بدن ورقة هذا وحوبة هانتا إنك كوبناتو sincerity إنه واحد عندنا مكبوحده. There are times when a formal written apology may be your only option. اللي هو حاجري كرامو حاجرة your option كاد هيسته كليه إنه يهم علينا apology letter عن قرطه or could otherwise they prefer the method أما سيدا الكلام بمحل هذا method كعد البنس إنه يهاي apology letter مرك معلنته وحلو بين القرطه to write an apology letter سلوا قرأ والقط رالي جلينا you will need هذا بهانته to address your error early in the letter محل هذا وحضر بهانته إن أشيكته قالت كاد محل هذا خراء دوسا مسنا ورقة كشكته sidoo kale acknowledge inaad xalada diiradda saarto ama aad xalada aad qirto the other party's hard feeling dadka kale dhibaatada aad u geysatay and accept full responsibility waa inaad ogolaato responsibility dhammaystiran for your part in the matter waxaad xalada arrinta aad ka lahayd inaad qaadato. In many cases you will also need to offer a solution that will fix any underlying issue related to original problem. So in many cases waxaad u baahnaan doontaa inaad offer garayso ama solution aad u samayso si loo fixer gareeyo maxaa la yiraahdaa issue-gaas oo la xiriirta original problem maxaa la yiraahdaa dhibaato maxaa la aad hore u samaysay aad inaad maxaa la yiraahdaa solution-keeda aad sheegto. If you want to make sure that your apology is effective haddaad u baahan tahay inaad xaqiijiso raaligelintaada inay noqoto effective and does not cause even more hurt inaysan keenayn maxaa la yiraahdaa dhibaato badan ama qofka dhaawac badan aysan u geysanaynin laba shay ayaa muhiim ah inaad diirad saarto warqadaada clarity inay noqoto iyo sincerity inay ka ahaato. Haddaba markaan apology letter aan qorayno hal part 1 waa forming your apology sida loo sameeyo raaligelintaada. Section 1 qaybta hore ee part 1 section 1 keeda wuxuu leeyahay state what your letter is about. Horta waxaad sheegaysaa warqadaad qorayso waxay ku saabsan tahay. Why it is a good idea to begin by letting them know that this letter is an apology. waa muhiim hal yiraahdo waa fikir wanaagsan inaad warqadaada aad ku bilowdo ama aad sheegto in warqadan ay tahay warqad raali gelin ah maxaa yeelay muhiimadda laga leeyahay waxay tahay waxa la diidayaa in qofka uu confused uu noqdo ama uu ku confuse garan waayo oo sababtaad warqad u qorayso ama waxaad dhihi doonto ma garanayo marka dad already warqadaada bilowga aad ku sheegto inaad hal yiraahdo aad doonayso inaad warqad raali gelin aad bixiso then qofka way u fududaanaysaa ama hal yiraahdo the rest of the letter waa laga si kalsooni leh ama si degan inuu ku akhriyo maadaama qofka dhibaato aad u geysatay. Tusaalaan say something like waxaad ku qoraysaa ama waxaad dhehaysaa I wanted waxaan rabay to write inaan qoro to write inaan kuu soo qoro a letter warqad to apologize raaligelina warqadaad markaad sidoo ku bilowdo kadibna qofka way u fududaanaysaa ama qofka uu garanaya waxaad dhihi doonto iyo wax kale. Section 2 markaad warqadaada sheegto in raaligelin tahay haddana kadib waxaad sheegaysaa state your mistake waxaad ka hadlaysaa ama waxaad wax ka sheegaysaa qaladka aad gashay. Now you have acknowledged that you have apologizing what you are apologizing for and why it was incorrect. waxaad ka hadlaysaa sababta aad u raaligelinayso then markaad arrimahaad ka hadlayso be very exact and descriptive waxaad noqonaysaa mid exact iyo descriptive oo maxaa la shayga tilmaamaya. By fully putting it out there in the open the person that you are apologizing will know that you do really understand what you did. markaad mistake sheegto muhiimadda laga leeyahay qofkaad qaladka ka gashay ama qofkaad raali gelinayso wuxuu garanayaa ama wuxuu ogaanayaa inaad qaladkaagii aad fahantay markaad qaladkaagii fahantayna then optionka asigaas kale inuu raali gelintaada ogolaado iyo inuu ogolaan waayo. Say something like waxaad ku qoraysaa qoraalkaagii oo kale what I did last weekend waxaan sameeyay dhamaadkii isbuucii hore was horribly inappropriate wuxuu ahaa mid aan inappropriate mid aan habboonayn disrespectful aan xushmad ku dhexnan and wildly selfish ay ku dheehan tahay maxaa la yiraahdaa nafsiyan qof wax uu jecel yahay. sidoo kale waxaad acknowledge garaynaysaa waxaad qiraysaa how much you have hurt them intaad dhibaato aad u geysatay oo kale ayaad qiraysaa. marka tani waa good time waa xilliga ugu wanaagsan aad qofka sheegi karto waxaad ugu sii daraysaa inaad never intended for them to be hurt inaadan ugu talagalin aysan ahayn shaygan shay la sii qorsheeysan ahayn wax uu si kama u dhacay. waxaad u qoraysaa tusaale ahaan
Jama told me, Jama ayaa ii sheegay that my action is ruined, that my action is ficiladaydii ruined not only your happiness keliya aysan baabi'in farxadaadii but also daily activity ay qayb ka qaateen activity aad maalin walba aad qaban lahayd inay dhibaato u gaarsiiyeen. I hope you understand that was never my intention. waxaan rajaynayaa inaad fahanto that this was never my intention inaysan ahayn waxaan qorsheeyey. kadibna express your gratitude waxaad muujinaysaa gratitude-kaada ayaad muujinaysaa qofkaada muujinaysaa. qaabkaad u muujinaysa waxaa ka mid ah gratitude-kaaga inaad sheegto hard workiska ama shayadii wanaagsanaa oo qofka kuu soo qabtay ama idin soo dhexmarin in the past xilli hore. This shows them tani waxay u muujinaysaa that you appreciate them inaad appreciate garaynayso oo qofka and help they can help show that you really do feel bad about what you have done. qofkaasi waxay tusinaysaa in aad appreciation aad u sameynayso iyo sidoo kale waxay kaloo ka caawinaysaa inuu fahmo inaad ka xuntahay waxaad samaysay. marka qoraalkan oo kooban halkan ku qoran wuxuu tilmaamayaa in uu terrible thing uu naftiisa uu ka xun yahay after intaas qofka aad isoo samaysay ina waxa kugu sameeyay waan ka xumahay. Then accept your responsibility waxaad ogolaanaysaa inaad waxaas mas'uulad ka tahay. This is the most important part of an apology letter. waa qaybaha ugu muhiimsan ee ka mid ah apology letter inaad responsibility aad qaadato but can be the hardest to say. waa ka waxyaabo ugu adag ee la sameeyay ka mid tahay. What you do need to do is to admit your responsibility for your mistake openly without reservation. waxaad u baahan tahay si openly inaad u sheegto like I will try to offer an explanation for what I did but there are no excuse. waxaan isku dayay inaan hal explanation ka bixiyo ama sharaxaad aan ka bixiyo waxaan sameeyay laakiin explanationkaasi excuse ama wax oo cudurdaar ma noqonayo. I absolutely take responsibility my self action. waxaan qaadayaa mas'uuliyad inaan ka mas'uula wixii aan aniga sameeyay the terrible pain I have caused you. wax walbo oo dhibaato leh aan kugu sameeyay waan ogolahay. wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.